maasha allah asxaabtii ugu xiran dhammaantiin soo dhawaada waxaa inoo wada cashadan waa fuul ama faasuuli saa u taqaanid iyo rooti yar macaan badan nala daawada qaabka u sameyn bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaligo janalka ku xiran meelba ay joogtiin waa idin salaamay walaashin saacadiya cabdullaahi janalka daawanaysa saacidush cooking channel uu horaan intaad ku cusubtaa kusoo dhaweynaya subscribe taa gambaleel kor kuma hadaan la joojid soo dhawow like share comment hanaga iloobin insha allah asxaabay waxaan rabaa inaan sameeyo rooti iyo faasuuli amba digirta oo ku jirta gasaca laba xabo u kuna garaacay waxaan kaloo ku daray sokor inta markaas adiga qiyaastaada isticmaal rootigan wuu ka duwan yahay rootiyada kale maasha allah rooti waxaan ku darsan balo aad u macaan badan waaye hadda waxaan ku darayaa saliid xogaa yar oo saliid isticmaaleynaa waan qiyaasinayaa intaan hadda si fiican u garaacaynaa waxaan ku darayaa cusbo xogaa yar oo cusbo isticmaalaya waxaan kaloo u baahanahay hal qaado oo leebate qaado buuxda waaye waxaan isticmaalayaa qaadadan halfkeed oo baking powder intaan haddana aan garaacaynaa mishiinka ukunta lagu qasaya daas xitaa maasha allah kaas xitaa uu kaaga fudud yahay midkan rootigan soo tijaabiya asxaabteyda fiidiyoga dhammaad ilaa bilow daabo waad ka heli doontaa rooti run ahaantii aniga isoo cajibiyey waaye waxaan haystaa caanaha isticmaalaya waa hal galaas biyo qandaca kusoo qasay laakiin hadda waxaan ku isticmaalayaa galaaska haafkiisa caane burka isticmaalayna waa qamadi iyo burkeena caadiga oo isku soo daray hal galaas oo qamadi iyo laba galaas oo burka caadiga waaye marka haafan ku qasanaa haafka kalena markaan isoo dhexgeliya dib haddana ka isticmaali doona caanihii iyo haafka burka noo haray mana u qasayna siiro oo adag xogaa yar waa jilcinaynaa waa arki doontiin qaabka aan u qasaayo waa soo qasanaynaa wax yar oo waxaan kusoo daraa carfiso waa kana asxaabay waa soo qasay way jilcan tahay aad u soo jilciyay muufada camal u soo qasay marka insha allah asxaabay karaal noqda buuqa iyo xogaatay shanqara maqashin rooban noo da'ayo intuu noogu qamira sugeynaa asxaabay hadda waxaan dalacanaynaa faasuuliyadeena amba digirta gasaca ku jirta amba fuul saa u taqaanid xogaa yar saliida dabka soo saaranaynaa digirta isticmaala waatana faasuuliya ku qoran fuulna waa la dhahaa marka midaan midii gaduudneed waaye oo dhacaanka wadatay laba gasac ka isticmaalayaa waxaan rabaa basasha inay xoogaa ii soo shiilanto markay noo soo shiilanto kadib kusoo laabanaynaa asxaabay kusoo laabana digsigii basasha saa rabay ii noqotay marka halkan waxaan ku haystaa digirtii qoyaanka daarta ku darsanaysaa haddii kalena waa iska dhaafi kartaa mushkilad ma lahan inaa iska dhaaftida fiican waayo waxay leedahay xogaa yar oo macaane qofkii arkay waxaa malaysa sokor inay ku jirto anigoo iska soo saaray macaankaas kaligeeda ka soo qaatay waa soo shaandhiyey saasay taa weli wada waa socotaa
laakiin intaan dhib ma lahan markay ayada kaligeed isqabto markaa ku darsada weliba zaaid dareemaysaa. aniga waa kasoo miiray. waxaan kusoo darayaa baradho iyo karooto. baradhada sidii yaro balbalaarana u soo jarjaray, qafiifna waan kasoo dhigay. baradhada 3 xabo waaye, karootadana 2 xabo. marka waxaan sameynayaa asxaabteyda intaan xogaa yar isku huurinaynaa digirtii iyo baradhadii karootada. markay cabaar isku huuraan waxaan ku darsanayaa yaanyo usoo diyaarinaa, laakiin ugu horeyn waxaan rabaa inay ii soo huuraan intaan ay isku soo shiilmaan. waa ila fahanteen aan umaleynaa insha allah. asxaabi digsigii hadda kusoo laabtay, cabaaraa ka maqnaay. marka hadda waxaan soo diyaarsaday yaanyo, waan soo shiidanay. yaanyada maasha allah wax badan waaye. yaanyada badan waxaa dhadhan fiican ay siinaysaa. waxaa kale had ku darsanaynaa maraq digaag, midka qudaarta ka samaysan. hal qaata ka isticmaalayaa. waxaan kaloo ku darayaa xabad shiishiide. wax kale kaagama baahno. maasha allah aadna ugu macaan badan tahay. hilib xitaa waa ka maarmaysaa. wax kale kuma dareen asxaabteyda. intaan isku dabooleynaa. markay cabaarna soo karaan kadib waxyaabihii kala carafta ayaan ku darsan doonaa insha allah. laakiin ugu horeyn intaan rabaa inay isku soo karaan. asxaabi waa kusoo laabtay digsigii. hadda waxaan kusoo daray kabsar iyo tuun iyo 2 xabo basbaas ah. intaas isku soo shiiday. markaad waxaan ku darayaa xabaash. xabaashkaas intaas uu ka kooban yahay. wax waliba way ku jiraan. macal heel waxba ma u baahanaysid. marka insha allah xabaashkan hadda ku darsid caraf kale waa ka maarantaa ama xabaashi kale. waxaan kaloo ku darayaa babrika. waxaan kaloo aan ku darsanaynaa wax yar oo filfil ah. digirtu way kaa gubanaysaa mar waliba ka taxadar. waxawaaye meel kale ma rabtaba digsiga hoose inay ka fadhiistay rabtaa. marka mar waliba ka ilaali inay kaa gubato. ayadoo intaanu biyo ku jiraan haddana waxay rabtaa inay gubato. sida baradhadii oo kale waaye. xogaa yar saliida ku dareynaa. waxaan kaloo ku daray cusbo. markaas insha allah asxaabey waan soo daboolayaa biyaha inay soo gursataa rabaa. caraftaan isku soo asxaabey ugu dambeyn sidaa rabnay inoo noqotay fuulkeeni. maasha allah ruuxaan ku dhahay indhaha looma dhameyn karo. hadda waxaan usoo diyaariyay basal iyo barbarooni. haddaad jeceshahay qoyaanka waa badsan kartaa. haddii kalena sidaa camal ku dhaafan kartaa. wax yaroo rasiin ah waaye. marka intaana uga baxaynaa fuulkeena. asxaabey hadda waxaan soo saaray saxankii oo ofinka ku gelin lahaa. marka gacanteyda saas kusoo yeelay. hoosna warqadii aan u dhigay. marka insha allah foornaduna way noo taaran tahay. 200 aan geeyey. waxay noogu jiraanaysaa 35 daqiiqo. marka insha allah 35 daqiiqo kadib aan kasoo bixinaa. asxaabteyda rootigii waa kanaa 35 daqiiqo dabka noogu jiray. 10 daqiiqan markaan kasoo bixiyay 10 daqiiqa daboolay. shukumaankaas yariska ku daboolay. waxaan sugaa ilaa inuu soo qaboobo. waqti salaadna way ahayd. maqrib aan soo dukanayay. marka insha allah
hadda arkaynaa sida uu kusoo baxay maasha Allah. haddaa sisin xitaa haysadid kor waa ka saaran kartaa, wuxuu diidaa malahan. xabasowdo waxa dhan waa ka saari kartaa. asxaabi hadda waa jarjaranaynaa, qaabkaa rabtid u jarjaran kartaa ama sida markaas adiga kula qurux badan. aniga sida waxaan u jarjaranayaa basbuusadoo kale. maasha Allah, rooti aad u jilcan yahay, xitaa waxaa ka dareemaysaa midida qaabka ay u dhex galayso. doorsho camal waaye rootigan. haddaa baratid waxaan ku dhahay waa ka il helaysaa, maalin walba asaga lagaa celcelinaa, ma fahanteen? soo tijaabiye, aad uu u macaan badan yahay. xitaa wuu ka sahlan yahay rootiga kale, wuuna ka fiican yahay. marka halkii xabo ugu horeeyaan fiirinaynaa sida uu noogu soo baxay. maasha Allah, dhexdiis qallayl, hoosna saan uu gaduutay. ujeedin moosoo indho u leeyahay. maasha Allah, lagama sheekeyn karo. aadna wuu u macaan badan yahay, ilaa hadda wuu kulul yahay. marka tartiib waxaa ka fiiqanaysaa warqadda, saxa yaraa saaranaysaa. kullin waa isku mid, midba midka kale wuu ka daran yahay. maasha Allah, ku dhan macaan caraf. haddaa familkaada uu weyn yahay 2 jeer aa samaysanaysaa, dhib ma lahan. marka insha Allah asxaabi hadda waa soo diyaarsanaynaa. asxaabi hadda waa diyaarsanaynaa. meesha waxaan soo saaray rootigii. xitaa qofkii loo geeyo doorsho miyaa uu leeyahay, ma u malaynayo rooti. adiga laftirkaada markaa kordheer ka arkaysa waxaa u malaysaa doorsho ma ahan. maasha Allah, fuulkina waa kana asagana inaba caadi ma ahan. waxaa ku dhahay asagana waxaa u malaysaa wax kale. rootigiina waa kanaa. run ahaantii asxaabi lagama sheekeyn karo, tijaabiya. saasoo iskugu goosanaysaa, ma fahanteen? macaankiisa lagama sheekeyn karo. insha Allah asxaabteyda inaad ka hesheen ood ka faa'iideysan doontiin ayaan rajeynayaa. dhammaantiin meel walba ay joogtiin waxaan idin leeyahay nabad qab iyo caafimaad waarta insha Allah. fiidiyooga xiga inoo balane. fi amaanillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.